wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahyada. tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonaa xujooyinkii sababay guurkii huryo iyo kabacalaf. halxiraaluhu waa su'aalo isku xirto, ha ahaado googaalaysi, gabay amase si kale hal isugu xirtee. inta badan halxiraalayaashu waxaa u badnaa dadka guurdoonka ah, wuxuuna kaalin wacan kaga jiray haasaawaha dhex mara dhallinyarada miyiga. ujeeddadiisuna waxay ahayd in lagu ogaado qofka garashadiisa heerka ay tahay. iyadoo taasi jirtay ayaa misana sheekooyinka iyo iswaraysyada caadiga ah ee dhex mara dadka wuxuu ku dhisnaa xujo, sidii gabadhii ninkii ku yidhi naa guriga rag ma joogaa, iyadiina ku tidhi nin baa jooga oo isna wuu hurdaa. ii toosi buu yidhi, xil buu igu leeyahay oo ma toosin karo bay tidhi. oo maxaa dhacay buu yidhi. markaas ayay tidhi tii dhashay tu dhashay baa i dhashay, anna aabbihii baa i qaba. halxiraalahaasi iyo kuwo kale oo badan ayaa laga helaa sheekooyinka Soomaalida. haddaba sheekada aan ku soo qaadan doonno tixanaha murtida iyo maahmaahyada waa sheekada caanka ah oo ay Soomaalidu inteeda badan wada taqaan. waxaa suurtagal ah sidaa u taqaani si ka duwan inaad u maqli doonto goordhow, taasna u qaado inay tahay hodontinimada afkeena hooyo. sooma arag maahmaah ama murti xarafkii aad ku arki jirtay in si ka duwan lagugu sheego iyagoo hal macno ku soo biyo shubanaya. waxaan sheekadan idinkugu soo gudbinayaa sidii aan ku qoray buuga cusub oo la yidhaahdo tixanaha murtida iyo maahmaahyada, waxaana isugu duba riday sida tan. beri baa waxaa haasaawo dhex maray wiil dhallinyaro ahi iyo huryo, waxayna ku heshiiyeen inay isguursadaan oo weliba isla baxaan. maalintii ay ku ballameen inay isa soo mehersadaan ayuu wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu wehel ahaan u soo kaxaystay kabacalaf nin la yidhaahdo oo ay saaxiibo ahaayeen. waxay habeenkii oo dhan sii guureeyaanba markii waagii baryey ayay wiilashii huryo ku tidhi war maan luunka ama naabka iska rogno. wiilkii dhallinyarada ahaa ee iyada watay ayaa eega oo yidhi maxaa luunka isaga rognaa, masahay baan sidanaa. kabacalaf baa yidhi war gabadhu waxay ula jeeddaa aynu cadayanno ee rumay inoo soo gooy, ilaan cadowgu wuxuu jebiyaa hamuunta gaajada ee. markii ay xoogaa socdeen oo ay daaleen ayay waxay hoos fadhiisteen geed weyn oo har leh hoostii. haddana huryo ayaa ku tidhi wiilashii war maan nasanno. ninkii iyada wata ayaa intuu fiiriyey ku yidhi ileen huryo waad iska hadashaa, soo innagaan fadhinna ma nasinaan noo laaban. kabacalaf ayaa yidhi war gabadhu waxay ula jeeddaa kabaha aynu iska bixinno. markay in cabbaar ah socdeen ayay huryo ku tidhi wiilashii waryaadahe iqaada mise anigaa idin qaadayo. ninkii iyada wata baa soo boodo oo yidhi ilan huryoy waad iska hantaatacdaa, sidee kaa noqotay, ma annagaa gaadiid wadanno, sidee kuu qaadnaa. kabacalaf baa yidhi sidaa ulama jeeddee ee waxay ula jeeddaa ii sheekeeya ama aan idiin sheekeeyo. haddaba siday u socdeen ayaa waxaa ka hor yimid nin 9 jir ahi oo ul ku tukubaya. huryo ayaa tidhi ninkan ma soo socdaa mise wuu sii socdaa. ninkii iyada wata ayaa yidhi soo uma jeedid waa nugu soo socdaaye ma indhahaa beeshay. kabacalaf baa yidhi war gabadhu waxay ula jeeddaa odagu god aakhiro u jeedaaye dad iyo diin ma ka tegey. iyagoo sidii u socda ayaa waxaa ka hor yimid meed la wado. huryo ayaa waxay ku tidhi meydkan la wado ma dhintay mise wuu dhuuntay. ninkii iyada watay ayaa yaab afka kala qaaday, kolkaas ayuu yidhi ma arag weligayga wax kaa jaahilsan huryoy, soo ma aragtid meydka in qabuuraha loo wado. markii tuuladii masaafadu ku ekeed ee in cabbaara u soo jiraan bay huryo tidhi reero baan arkaa. ninkii iyada wata baa yidhi aawe reeraha aad sheegayso ma arkee. kabacalaf baa yidhi war gabadhu waxay aragtay haad dulduulaya, maxaa yeelay Soomaalidu waxay tidhaahdaa xuunsho raq joogtay ama reer joogtay ama rees joogtay. in yar kadib waxa ay galeen tuuladii. huryo ayaa tidhi magaaladu ma dhisan tahay mise way dunsan tahay. wiilkii huryo watay ayaa yidhi ma indho la'dahay, soo kuwaasi guryaha horteena ka muuqdaan. kabacalaf baa yidhi war gabadhu waxay ula jeeddaa tuuladu ma leedahay sheikh wax meheriya iyo masaajidyo lagu tukado, kolkaas ayay magaaladu dhisan tahaye. haddaba dhegaysto maxaa dhacay ayay kula tahay intaa kadib.
markii shiikhii gabadha mehri lahaa la hor fadhiistay ayay gabadhii shiikhii u sheegtay in intay soo socdeen wiilkaani iyada la soo tegay weydiiday su'aalo ay ku ogaanaysay garashadiisa mar hadduuba ka jawaabi waayene qaadi karaynin mas'uuliyaddeeda waxaanse u boga bay tiri shiikhow sida saaxiibkiisa garashada leh uga jawaabay xujooyinka sidaa darteed waxaan shiikhow kaa codsanayaa inaad ugu mehrido ninkan kabacalaf la yidhaahdo halkaas ayuu ninkii gabadhii kolkii hore la soo baxay ka mid noqday markhaatiyaashii gabadha dhegaystayaal layaab ma lahaa in huryo kabacalaf ka dooratay ninkii markii hore la soo baxday waayo waxay dib u fiirisay nolosheeda dambe si kastaba ha ahaatee ma xumo in qofkaad guursanaysid iska hubisid garashadiisa dhegaystayaal tixanaha murtida iyo maahmaahyadane maanta halkaa ha inoo joogto ta intaa ku kulmi doonno qayb kale